Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaasha iyo daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan kusoo dhowaada mar kale iyo casharkeenii biology secondary form 1 chapterka labaad casharka afaraad. casharkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay uu ka bilaabanayaa vacuoles, waana qayb ka mid ah qaybaha la isku dhaho membrane band organelles, xubnaha yaryarka ah ee cytoplasmka dhexdaadsan ee daboolka ku daboolan ayaa waxaa inooga haray vacuoles iyo blastids iyo ribosomes ayaan uga hadlaynaa. waa vacuoles iyo blastids, labadaasaa inooga haray. haddaan ku hormarno vacuoles, waxaa laga helaa plant cellska ayaa laga helaa. waa vacuoles are large cavities found in plant cells. waa godad waaweyn weeyaan oo laga helo unuga dhirta ayaa laga helaa, waana qaybta ugu weyn ee cytoplasmka laga dhex helo weeye. organelleska kan ugu weyn weeye. waxaa ku daboolan dabool aad u khafiif ah, kaasoo waxa weeyaan waxyaabaha ku jira cytoplasmka iyo asaga waxa weeyaan kala ilaaliya. sidoo kale wuxuu hagaajiyaa vacuoleka in ay soo galaan dhexdiisii kana baxaan, wax soo galaan waxna ka baxaan. shaqada uu qabto haddaynu soo koobno vacuoleka, the function of the vacuole is to store juices and excess products of the cell. shaqadiisu waxay tahay to store juices, waa in uu dheecaanada keydiyo, and excess products of the cell, iyo waxyaabaha dheeriga ah ee seelka uu soo saaro in uu keydiyo. marka waa sida haan oo kale weeye, haantaasoo lagu shubanayo wixii markaa loo baahan yahay oo dareero ah. blastids ayaan halkan ka gelaynaa. blastidsku waa large organelles, waa xubno yaryar oo aad u waaweyn weeyaan oo laga helo plant cellska laga hela. iyaduna waxaa jiro 3 nooc oo blastids ayaa jiro. chloroplast oo green blastid ah, blastid cagaaran, iyo chromoblast oo ah colored blastids, blastids oo kalaro badan leh, iyo leucoblastis yani colorless blastids, blastids oo aan color lahayn. blastidska waxaa laga helaa dhirtaa laga helaa. shaqadoodana way noo imaan doontaa. waa cunto samaynta ay qaabilsan yihiin, gaar ahaan chloroblastiga. marka chloroblastiga hal kalar ayuu leeyahay, waa cagaar. chromoblastna wuxuu leeyahay kalaro badan oo leeyahay. leucoblastiga isagu kalar ma leh. saddexdoodina waxay hoos tagaan blastidsay hoos tagaan. haddaan ku hormarno chloroblast, wuxuu u eg yahay sida ukuntoo kale, waa wareegsan yahay, waa organelle weeye, waa xubnaha yararka cytoplasmka dhexdaadsan. plant cellska laga helaa. 2 membrane ayaa ku daboolan, mid gudaha iyo mid oo dibadda ah. wuxuu leeyahay raso ayuu leeyahay ama rasdo ayuu leeyahay oo thylakoid membrane, xuub wuxuu leeyahay oo dabaqyo ah oo qaybo ah. dhexdiisii waxaa ku jira marka chloroplastiga dhexdiisii waxaa ku jiro chlorophyll, maadadaas cagaaryaha ah oo ayaa ku jirto. chlorophyllku waxa weeyaan waa molecuulka keliya ee qabta iftiinka, waxa weeyaan qoraxda qabta, seelka usoo qabta weeye. shaqada uu qabto chloroplast haddaynu soo koobno, the chloroplast is the site of photosynthesis in the plant cells. waa qaybta cunto samaynta qaabilsan unugyada dhirta. ilaan dhirtu autotrophic way horaan usoo sheegnay, cuntadeeda iyada diyaarsato. qaybta cunada lagu sameeyo ayaa chloroplastiga ah. waxaan halkan ka gelaynaa qaybtii labaad ee cytoplasmka. cytoplasmka waxaynu soo sheegnay inuu kala baxo 2 membrane organelles,
xubno yaryarow ama xubno yaryar oo membrane band organelles la yiraahdo oo dabool ku daboolan. kuwa waa ka soo baxnay waa plastid, waa vacuole, waa lysosome, waa Golgi body, waa endoplasmic reticulum, waa mitochondria. halkaa waxaan ka gelaynaa marka qaybtii labaad oo cytoplasmka oo la yiraahdo membraneless organelles. xubnaha yaryarka cytoplasmka dhexdaadsan ee aan membraneka lahayn, daboolka lahayn, si caadi u yaala waxaa ka mid ah ribosomes. Ribosomes waa wax aad u yaryar, waa very fine granules, waxyaabo aad u yaryar. waxaana laga helaa rough endoplasmic reticulumka dushiisa laga helaa. ayagoo caadi u yaalo cytoplasmka iska dhex yaalana waa la helaa. marka laba nooc ay u yaalaan, waa ayagoo rough endoplasmic reticulum dushiisii saaran waa la helaa, ayagoo waxa weeyaan gaar u yaalo cytoplasmka dhexdiisii daadsanna waa la helaa. shaqada ay qabanayaan waxa weeyaan functionskoodii are the centers of protein synthesis in the cell. waa xarumaha borotiinka lagu sameeyo, lagu aruuriyo seelka dhexdiisa weeye. waxaa halkan ka gelaynaa qaybta labaad oo la yiraahdo centrialis. Centrialis are rod-shaped structures located near the nucleus of animal cells. Centrialiska ayaguna waxay ka mid yihiin waxyaabaha cytoplasmka dhexdaadsan oo aan membraneka lahayn, ay ka mid yihiin animal cellka laga hela ayagu. waxayna u samaysan tahay qaab dhululub oo kale ah. waxay leedahay tubooyin yar yar oo aad u sii yaray leedahay oo habaysan. waxay ku qotamaan centrosomkay ku qotamaan. marka shaqadoodu waxay tahay centrialis have an important role in cell division by forming spindle fibers. Centrialiska waxay door weyn ka ciyaaraan seelka markuu qaybsamayo. waanu arki doonaa process fara badan baa la maraa, metaphase, anaphase, prophase, dhowr process la maraa. processyadaas process ka mid ah ayaa wax weyn ka qayb qaadanayaan marka seelka wax weyn uu qaybsamayo. markii la soo gaaro seelka inuu sameysmo spindle fibers, qaybtaas oo raarac uu sameynayo oo bu'da dhexdeedii, markaas ayuu waxa weeyaan uu qayb weyn u ka qaadanayaa cell divisionka. sidoo kale shaqada ay qabanayaan centrialiska waxa weeyaan they form cilia and flagella in cells and organisms where the structures occur. waxay sameynayaan cilia wax la yiraahdo waa duf, wax timo oo kala. flagella waa wax oo lugo oo kale uu ku socdo seelka ku dhaqdhaqaaqo. iyo nooleyaashaba ay u sameynayaan seelkay u sameynayaan, noolaha oo dhan way u sameynayaan. meel alla meeshii structuradan oo centrialiska laga helo howlahaasay ka qabanayaan. marka qaybta ugu dambeysa waxaan kaga hadlaynaa cytoskeleton. wuxuu ka mid yahay membraneless organelles, xubnaha aan membraneka ku daboolnayn ee laga helo cytoplasmka laga dhex helo. Cytoskeleton is a network of interlinking proteins filament present in the cytoplasm of all cells. waa shabakad weeye oo isku xiran oo borotiino ah oo miiqyo ah, kuwaasoo waxa weeyaan laga helayo cytoplasmka, unugyada laga helayo. marka waa borotiin isku xiran oo cytoplasmka laga dhex helo weeye. cytoskeleton la yiraahdaa. haddii la kala bixbixiyo cyto means cell waaye, skeleton waa qolfoof. marka qolfoofta seelka ayuu noqonayaa. 3 uriye ayuu ka samaysan yahay cytoskeletonka. waa microtubules iyo microfilaments iyo intermediate filaments. tubooyin yar yar oo ilmo qabato ah iyo miiqyo
oo ilmo qabato ah iyo qayb dhexe oo miiqyo ah ayuu ka samaysan yahay yani sida dunta oo kale ah shaqada uu qabto waxa weeyaan cytoskeletonka the cytoskeleton supports the cell and gives it its distinctive shape wuxuu support garaynayaa seelka wuxuuna siinayaa qaabkiisii gaarka ah ee lagu yaqaan seelka inuu shape leeyahay saddex shay uu leeyahay seelku rod qaab ul oo kale u samaysan yahay sphere qaab wuxuu u samaysan yahay goob oo kale spiral qaab diilimo oo kale dhibco ayuu u samaysan yahay inuu seelku shape-kaas uu ku joogo ayuu cytoskeleton uu ka shaqaynayaa isagu marka it plays a role in cell movement and it is organelles shaqada labaad uu qabto waxa weeyaan wuxuu door weyn ka qaadanayaa dhaqdhaqaaqa seelka iyo xubnaha kale ee seelka laga dhexelo waxaan kusoo gabagabeynaynaa marka differences between plant and animal cell farqiga u dhexeeyo plant cell iyo animal cell waa intii casharka aan kusoo marnay ayaan soo koobaynaa soo gabagabeynaynaa jadwalkan aan kusoo gabagabeynaynaa plant cell waxay leeyihiin cell wall derby cell ay leeyihiin plant cell waxay leeyihiin chloroplast ay leeyihiin maadadaas chlorophyllka ku dhex jirtaay chloroplast waa qandi waaye oo ku dhex jiro chlorophyll ku dhex jiro plant cell waxay leeyihiin sidoo kale vacuoles ay leeyihiin haaman oo dheecaanada iyo lagu shubo plant cell centrial ma leh ayagu animal cellna muxuu leeyahay cell wall ma leh chloroplast ma leh vacuole ma leh laakiin centrial uu leeyahay halkaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa casharkeeni maanta la soco casharka ku xiga oo ah nucleus bu'da waa structureka saddexaad oo seelka laga helo waxaa inoo soo dhammaaday labo oo ah cell membrane iyo cytoplasm waxaynu gelaynaa nucleus bu'da iyo waxa ay qabato iyo siday u shaqayso iyo siday u samaysan tahay ayaynu kaga hadli doonaa casharka soo socda fadlan dhegaysta la soco oo subscribe garay casharkeenii beejkeenana follow ku sameey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu